daawada haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalkeena xigmadyahan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad furto gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub sidoo kale ha ilmaamin inaad like share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan mahadsanid weligaana guulayso hadda ka hor ayaa suldaankii dawladdii Cusmaaniyiinta ee la oran jiray Muraadkii afraad ahaana suldaankii 17aad ee dawladdii Cusmaaniyiinta kaasoo xilka hayay intii u dhaxaysay sanadihii 1623 ilaa 1640 ayaa waxyaabaha lagu bartay intii uu xukunka hayay waxaa ka mid ahaa inuu u kuurgalo oo ka warhayo xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka masaakiinta ah waxaa dhacday in xilli fiid ah uu dareemay walaac waxaana uu go'aansaday inuu u yeero ilaaladiisa gaarka ah dabadeedna bannaanka ayuu u soo baxay markaas ayuu wuxuu la kulmay meel dadku ay ku buuqsan yihiin wuxuuna arkay nin dhulka yaalla suldaankii ayaa soo dul istaagay balse ninku meed ayuu ahaa mana jirin cid danaynaysa arrimaha ninka dhulka yaalla qof kastana hawshiisa gaarka ah ayuu ku mashquulsanaa kadibna suldaankii ayaa qaar ka mid ah dadkii wadada marayay weydiiyay muxuu ahaa ninkan dhulka yaalla oo aanay jirin cid ka murugoonaysa aaway sareerkiisa dadkii ayaa waxa ay ku yiraahdeen ninkan aad iyo aad ayuu qamriga u cabi jiray waana uu sinaysan jiray intaa kadib suldaankii ayaa yidhi ninkani kamid ma aha ummadda Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam haatanna igu caawiya inaan meydka ninkan gurigiisa u qaadno dadkii waxa ay suldaanka ka caawiyeen qaadista meydka markii gurigiisa la keenay ayaa suldaanka iyo ilaaladiisii ay ku hareen gurigii markii ay xaaskiisa aragtay meydka ninkeeda ayaa iyadoo ku dulbarooranaysa waxa ay tiri Alle ku naxariisto waxaana marag ka ahay inaad ka mid ahayd kuwa dhowrsan suldaankii oo la yaaban hadalka haweeneyda ayaa yidhi sidee buu uga mid ahaa kuwa dhowrsan iyadoo dadku ay ka sheegayeen wax aan wanaagsanayn oo xitaa aanay jirin cid ka fikiraysa dhimashadiisa waxa ay ku jawaabtay haweeneydii taas waa mid aan filanayay maxaa yeelay ninkaygu habeen kasta wuxuu u bixi jiray ama aadi jiray maqaayadaha lagu caweeyo wuxuuna soo iibsan jiray qamri badan dabadeedna guriga ayuu keeni jiray waana uu daadan jiray wuxuuna igu oran jiray muslimiinta qaar ka mid ah oo shaydaanku duufsaday ayaan maanta badbaadiyay kuwaas oo qamrigan iibsan lahaa sidoo kale wuxuu aadi jiray goobaha dumarka jirkooda ka ganacsada lacag ayuuna siin jiray mid ka mid ah dumarka si ay u xirato albaabkeeda ilaa waagu uu ka bariyo dabadeedna guriga ayuu ku soo noqon jiray wuxuuna igu oran jiray caawa waxaan ka badbaadiyay dambi haweeney da'yar iyo dhalinyaro xaq rumaysay haweeneyda oo ninka ka dhintay iyadoo hadalkeedii sii wadataa waxa ay tiri ninkaygu dadku waxa ay arkeen isagoo qamri iibsanaya iyo isagoo galaya goobaha lagu sinaysto sidaa darteed ayay dadku ugu hadli jireen arrimihiisa maalin ayaan ku idhi ma jirto cid meydkaaga meeraysa ama dhaqaysa ma jirto cid meydkaaga ku dukan doonta mana jirto cid meydkaaga aasi doonta waayo dadku nin xun ayay ku maleeyaan waa uu igu qoslay wuxuuna igu yidhi alla idinkii kuwa xaqa rumeeyey suldaankooda oo ka mid ah kuwa dhowrsaday ayaa meydkayga ku dukan doona suldaankii ayaa bilaabay inuu ilmeeyo ama ooyo wuxuuna yidhi ilaahay baan ku dhaartay run buu sheegay aniga oo ah suldaan ayaa berri meyri doona ku dukan doona waana xabaali doona way dhacday sidaas suldaankii culimadii dadkii dhowrsanaa iyo dad kale ayaa meydka ninkaas ku tukaday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kuwa xaqa rumeeyay uu ka dhowrsada wax badan oo mala ah maxaa yeelay malaha qaarkiis waa dembi hana isjaajuusina qaarkiinna qaar yuusan xamanin miyuu jecel yahay midkiina inuu cuno hilibka walaalkiis oo meyd ah waad necab tihiin arrintaas eebbana ka dhowrsada waa toobad aqbale naxariistee suuradda alxujuraat aayadda 12